يعني مسهوس ومس عسوي because markay translate garayaan what is مسهوس mean waxay ku leeyihiin waa reddish snake ma fahanteen and waxaana la yidhaha waxay ku saabsan tahay good fortune ya luck destiny nasiib yeah waxaan soo xasuusta ninkii boqorkii reer koonfure la oranayay nasiib buunde ma maqashaa nasiib buunde fortune luck and it's funny maalintii dhaweytoole odayga nasiib buunde sheekadiisa waxaban ka bartayba odaygii abushacayb la oranayay reer jabuutiga ahaan professorkii walaahi odaygaa yar waxyaalo badan bana awowgaa ka bartay moogtahay and then maalin dhaweytoole nima yuhuudaaba xidhay baaba lagu leeyahay oo odaygiibaa waryaadahan hello waa qumayo xor xildiid amaad ka fiican tihiin waa anigii soo laabtay so maalintii dhaweytoole video baa meesha soo dhigay ka hadlayay the angel of death ama malakul mowdkii ayaan ka hadlayay daan waxaan soo xasuustay magacan ay khaatuma la baxday khaatuma waxa weeye dee dhimasho wacan ilaahay oo na gaarsii ayaad dadku u ducaystaan soo maaha marka dee malakumeedkii wuu taagan yahay wuu joogaa taasna waxaad ku garanaysaa ayaa akhrisadaankii inay tahay wallaahi bilaa waxyaala soo socda dhimasho iyo dagaal iyo maxaan ku idhaahay death baa soo socda yeah I don't know inay khaatumo wacan noqonayso maybe not because iminka dadkan waqooyi isku leynaya daa aragtid yaa maydkase u gelayaan ma taasaa khaatumo wacana maya marka questionable baan waxa meesha kula jira waa wax questionable ah waxaan soo xasuustay berigii dagaalkii laascaanood ka dhacay dagaalkii laascaanood bilaabmayay wuxuu bilaabmay around the same time oo August soo muu bilaabmin October 22giina meelaha October 23 may ahayd something like that waxaa la sameeyey waxa burburay heshiiskii khalifaydku nimankan cadeed ee buuraha Yurub ka soo daadegay Yurubta gaajada ayaa dee carabta noqon doona soo maaha marna yuhuudda noqon doona anyways nimankaasi iyagaa lahaa dee khalifaydkii ayaan haynay waatii khalifaydkii burburtay marka heshiiskii ay saxeexaan baa ku ekaa October October 2023gii ayuu burburay heshiiskii 100 sano marka it's a free maxaa la dhahaa dee free agreement baa la saxiixi karayaa heshiisyo cusub contractyo cusub baa la gelayaa oo dee waatan Falastiin bilowday iyaguna Falastiin iyo Israa'iilna iyaguna dagaalku ka qarxay after lagu dacaadeynayay bariga Soomaaliya wixii ka socday laascaanood Falastiin way dadkan dhagax tuuraya dhagax tuurka horta Soomaalidu ka yimid mogtiin dhagax tuurka xafaduhu inay shiidaan but anyways halkaasuu ka bilaabmay and then Falastiinka inuu naqaanay imika bariga kale haddana imika bariga dhexe la yidhaaho ayuu haddana ka bilaabmay dhagax tuurkii oo dee waatii Israa'iil lagu bilaabay marka Israa'iil magaca Israa'iil baynu ku hadlaynaa ilaa waa magacii loo yaqaanay malakumeedka ma ogtiin taas horta yes ma ogtiin taas anyways so Israa'iil baa la yidhaahaa malakumeedka the angel of death dadka nafta ka qaadaya ama markuu yimaado meesha waa la wada dhimanaya oranaya waxaa la yidhaahaa Azrael baa la yidhahaa waa magacan imika Israel noqon doona Isra waxa lagu macneeyaa inay tahay helper of God ama whom God helps ku ilaahay caawinayay ama ka ilaahay caawiya ayaa lagu tilmaamaa macneynta magaca Asra ama Isra al-Isra al-Manajna waynu garanaynaa oo waatii ahayd the night journey markuu safarka dheer u baxayay nabigu right the night journey marka Isra waa halka Azrael laga keenay Isra journey way la dhimashaduna waa journey
ma fahanteen sidoo kalena magacan Israa'iil imika ay la baxsatay waxaa la yidhaha waa magacii Jacob ama Yaquub waad garanaysiin waa kii dee 12 wiil dhalay Yusuf inankiisii ugu qiimaha badnaa uu ahaa ma fahanteen compared to the other one marka Yaquub ayaa Israa'iil loo bixin doonaa markaas la yidhaha maxaa loogu bixin doonaa Yaquub Israa'iil waa siday dee Genesis leedahay waxaa la yidhaha waxaa loogu bixinayaa Yaquub Israa'iil magaciisa kale habeen buu ay isqabsadeen malag xoog weyn ayay isla struggle gareeyeen oo habeenka markuu strugglekii sameeyey ilaa iyo subaxii bay dee isla struggle maxaa la odhanayaa ay ishaysteen isla dagaalamayeen oo ishaysteen struggle gareynayeen malag ilaa iyo subaxii ka gaadho marka waxaasaa loogu bixiyey kii dee malaga la struggle gareeyey oo Israa'iil buu noqon doonaa Yaquub baa Israa'iil noqon doonaa ama Israa'iil marka muu dhiman baa lagu leeyahay soo maaha basically so moot af carabi ereyga moot waa death waa dhimasho mootna waad garanaysiin qofku markaad mood gelisid silent gelisid they're unable to speak moot baad gelinaysaa waa isku ereyadii ilayn dhimashadu markuu qofku dhinto mood buu galaaye maydku ilayn waa mayd inaguna mayd baynu yidhaahnaa mood buu galaya qofkaasi soo maaha forever mood maxaa kalen ku diraa xitaa Faransiiskii hore markay leeyihiin Latinkii hore waxay sida carabtu u isbeelgarayso ayay moodkan u isbeelgareeyaan waxaa loo isbeelgareeyaa moodka ama death waxaa loo isbeelgareeyaa MAUT soo maaha moodkana ama dee tan ku saabsan aamusinta ama silenceka ama qofka aan unable to speak waa qof dhintay weey soo maaha taasna waxaa loo isbeelgareeyaa MUET marka waa isku halkii uun ma fahanteen so imika it's funny because TikTok waxa ka socda moodgal waraa hadlaya moodgal ma fahanteen waxaasaaba yidhi meeshan shaydaankaaba ku dhex jiraba iskaga bax anyways aynu sii soconno